shaaga soo qaado videogana dhamayso sidaan hore idinku sheegay markasta waxaan follow gareynayay oo aan daba socday miidiyaha yuhuuddu waxay ka qorayaan aqoonsigii goonigoostada la siiyey ee laalalaanays yuhuuddu siisay booyadii ugu weynayd hadda loo soo riixay oo yuhuuddu ay ku qaadan doonaan dhulka waqooyi galbeed iyo laalalaan iyaga aqoonsi iyo marqaan ay ku jiraan yuhuudda booyad weyn ay soo riixatay oo diyaaradaheeda wadata waxay taagan yihiin qabiil la dhaho yibir tribe oo yuhuudaaba jirayba oo ku noolaa geeska africa soomaaliye welcome to the reality qalbi soo dhow anaa ku sharaxayna hadaada waxba ka gelinay qabiilka yibros la yiraahdo ama anaas ama reer binu xaniifa waxay ka soo jeedaan asalkooda israa'iiliyiin weeyaan ma fahmaysaa riyaa kow haddaan noqoshay boqortooyada bucur bacayr waxay ka talin jirtay geega somaliland waryaamayaa maqas somaliland markaan ku leeyahay sool iyo sanaagna waa part of somaliland iyo meeshuu ninkaas ka talin jiray waa inaad taasna ogaatid all right marka inay iska sheeganayaan mahane way ku ogaayeen awalba meesha marka hore meesha waan ku ogaayeen dadkaan qabiilkaas waxay ku jiraan dalada gabooyaha la yiraahdo waa qayb ka mid ah qabiilada halkaas ku jiray oo ku walaaloobay bay ahayd ganida waxay si fiican isku dhex galeen oo si fiican daris wanaag u wadaageen waxa weeye dadka la yiraahdo gabooyaha oo kaliya Soomaalida kale kuma dhex milmin right marka Soomaaliya walaal maxay yaalo hada dadka ugu celinaysan dadkiina buuqayo Soomaaliya maxaad u haysaan dadkan Soomaaliya meel soo qabsanaysa ma mada wax ku dhacana way soo qabsadaan meel rabta inay soo qabsato ma waa meel si baaba'aysa meeshii waxa la yiri maxaa isha asubadooda dhamayd ba walaalo ilaahan kugu dhaarshay waxa ilaalinaya nima la yiraahdo Amazon walaalo aday bahalka loo joogay sheeg Afrikaan baa noo timid waddanka asubadooda ilaalinaysa dadkan maxaa u haystaan hadda ugu celinaysan halkan marka bal fahansi war umadu way kala faataxaystaan hal kala faataxaysto dadka lugaad ku dhigantiina waxba soo kordhinayso dadkaanu meeshan waa soo degayaan wadan iyo bloodka baa jiray Soomaaliya bloodka baa jiray maxaa ka jira Soomaaliya waxa ka mid ah Soomaaliya walaal waa meel qofkii walbantay iska darsada qaado marka meeshan ragan waa soo degayaan deegaankoodii bay murigood ba ahayd Soomaaliya ayagaaba iska lahaaba hadii taariikhda dib loo raaco taariikhda waxa ku qoran iyagu inay meeshan la deganaan jireen ilaa hadda dadkii qaar ay meesha uga tageen ay wali degan yihiin ma fahmaysaa marka inay yimaadaan gurigooda dad yimid dad ma ahan ku soo duulay Soomaaliya dii loo fiiro Soomaaliya kama watarsan shaqo iyo shaqo isku malaha waa laba waligood laba dawladood bay ahaayeen fahms marka intaas oo inay adagasho way inta waa inay faantaan way wiilkan dhulbahantan waxaan rabaa inaan markaa xasuusiyo sool ee sanaag is part of Somaliland iyo meesha hadda ay nimankaas sheeganayaan waa ogaan doonta because taariikhda la hayo boqortooyadii bucur bacayr geeyigaas oo ma ka talinayso let's see we don't give a fuck ya hadda degan fahmse waxaan naga waqtiyaa taariikhda dambe raacayna walaal dibaa loo noqonaya